Insaankii weynaa hadal uu yiri wuxuu yiri qof walba waa aqligiisa laakiin haddii aad ku xukunto kalluun inuu ku fulo awood geed isagoo awoodiisa tahay biyo taasi waxay la mid tahay qofka bini'aadamka laba meel awood kuma yeelan karo hal meel ayuu awood ku yeelan karaa waa bini'aadam qofkaani hal meel ayuu awood ku yeelan karaa okay waxaan ku soo bandhigayaa casriyadii la gaaray ee hadda kani waa telefoon casri ah maanta ayaan isticmaalnaa waan adeegsanaa wax walbo isaga ayaan u fududay kani waa telefoon aan adeegsanay 150 sano ka hor farqi weyn ayaa u dhaxaysa sax ila soco kani waa baabuurtii maanta aan adeegsanay ee casriga ah oo meel walba aan ku tagno haddii ahaa lahayd iskuulo haddii ahaa lahayd qabaal oo lagu gaxweeyo dhammaan baabuurtan casriga ayaan adeegsanaa kani waa baabuurtii 150 sano ka hor aan adeegsanay farqi weyn ayaa u dhaxaysa sax okay galaasyadan ama galaaskan iskuulka ee maanta waa galaasyadii maanta aan adeegsana waa kaas kani waa galaas aan adeegsanay 150 sano farqi weyn ayaa u dhaxaysa sax meelahan qayb ayaan u tahay anaga